baarlamaanku waa inuu ka madax banaanaado hay-adda fulinta la yidhi hadda kuwan hay-adda fulintaaba samaysaba intayna xildhibaan naqnayna ka madax banaanayn haddii hay-adda fulinta ay samaysay ay baarlamaanka soo fadhiistaan waxaa laga yaabaa inuu soo baxo guddoomiye baarlamaan oo booska loo xiray loo xiray lama tartami karo ama hal malxiisa loo keeno waana system ay yaqaaniin oo anaaba kusoo baxay karma qalad ku dhihi karaa ma naqaan haddii ilaahay amarkiisa haddii wax kale ay kasoo dhex bixi doonaan laakiin baarlamankan weli kama madax banaano hay-ad fulineed waa ujeedaa madaxweynayaasha maamul goboleeda systemka jiro kulli dad la rabay khasab waxaa ku samaysa hay-ad fulin iyagaa qaarkood waxay yihiin hay-adda fulinta ciidamaa ku jiro shaqaalo dowlaa ku jiro sharciga ma qabin ilaa shaqada dowladda aad ka tegtid adoo weli sarkaal ah inaad soo naqatid xildhibaan haddana adoo xildhibaan ka naqda inaad weli sii ahaatid haddana waxyaaba oo sharci buriska waa waxay ku yimideen ma naqaan marka qof intaas challenge garay karo ee ka hortegi karo inuu kasoo bixi doono qofkan loo maleeyana inta soo baxo oo marmar taariikhda bedelaa qof exceptional oo loo maleeyayo inuu fulintu wadato inta yimaado waa dhihi karaa shalay noogu ekeed laakiin nimankan hadda lasoo doortay dadku waxay isku qancinayaan ama lagu waanina war shalay haddii qaladkaas lagu keenay ninka ku keenay addoon ha u ahaanin ee xor iska dhig ummadda soomaaliyeed ka fikir garaadkiisu hadduu intaas siiyo qaar waaba sii doonaa waa fiican yihiin laakiin qaaraa weli waxaa ku registraysa maamul goboleedka ku magacaabay shalay baarlamaankaaga daba imaana waa ka qaadi karaya weli qaar iska qabaan waa dad iska yaryar khibrad oo aan lahayn ku jiro dad odayaal rug cadaaya meelaha qaar waa ka soo galeen marka maalmahaas wax la dooranayo saameynta ay yeelan doontay ku xiran tahay guddoomiyaha baarlamaankana shuruudaha loo sameeya ku xiran tahay si laftiisa yaa guddoomiye baarlamaan naqan karo sharcigu shuruuduu sheegaa shuruudahaas qof buuxiyey marka in at least la raadiyo ilaa xildhibaanka lama raadiyo shuruudihii u buuxi lahay inuu dowlad u shaqeynaa kamid ahayd da'na aad jirto aqoonaa jirto baarlamaanku qof kasta iskama geli karo shuruudahaas dhan qaabka loo dooraayo waxay dhan sharciga sheegaya inta sharcigu sheegaya inaan la suubin qof kastoona dhegeysa waa ogyahay xule laakiin say rabaa ha ku yimaadiine hadda wax fiican say rabaa ha ku yimaadiina dhahaysa berrina guddoomiyaha baarlamaanka soo rabaa ha ku yimaadee madaxweyne soo rabaa ha ku yimaadee ra-iisul wasaare soo rabaa ha ku yimaade wax fiican laga qabto adaaba ujeeda inaan wax fiican lagu qabanayn biimaalow center moolka biimaalow bari dhoweyd anoo baabuur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay biimaalow center xog ballaaran ma naga siin kartaa haa moolka biimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay ma xarunta ganacsiga ee biimaalow baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu biimaalow center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooca barta aad ka helayso qiimuhuna boqonogoys maaha tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeenna looga adeegto ha ahaato elektronig baakadaysan wax kastoo suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso biimaalow center moolka biimaalow waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyey waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka elektroniga sida khasaaladaha farinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan make up tayadiisu sareyso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyey oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa biimaalow mool adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan kaa lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyeyn biimaalow center xarunta ganacsiga ee biimaalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee macalin biimaalow